بسم الله الرحمن الرحيم لما دالن سوماليات كسو دوادا لاب 1 WLC اما wireless LAN controller lab 1 waxaan laabkan ku qaadan doonaa sidii aan configuration aan ugu sameeynaa WLC oo aan kaga dhigaynaa in uu controli karo laba access point nooca access pointiska uu controlo WLC gan waxaan ku soo sheegnay in ay yihiin lightweight access points marka laabkaas ayaan wada dhisaynaa focus waxaan saaraynaa marka laabkan basic configuration of WLC iyo client authentication. Client authentication waxa ula jeedaa dadka ku soo xirmi doono ama qalabka ku soo xirmi doono access pointiska aan ka controleyno WLC-ga sidee dadkaasi aan authentication ugu sameyn karnaa. Ma waxaan isticmaalinaa kaliya password mise waxaan isticmaalinaa kaliya ama mise waxaan isticmaalinaa ula jeedaa username iyo password. waan laabkan waa lab 1 series aan ka sameyn doonaa hadduu alle idmo waqtina aan isku helno. laabkan marka waxaan kaliya aan rabaa basicska haddii aadan theory-ga WLC-ga iyo wax uu qabto aadan haynin tutorialska aan ka sameynay videoyada hore ku laabo haddaan wada dhisno marka bismillah haddaan bilowno waxaan marka hore soo qaadanaynaa WLC-ga sidaan hore ugu soo heshiinay nooca WLC-ga aniga aan isticmaalayo waa 3504 kadibna waxaan soo qaadanaynaa laba access point noocoodu uu yahay lightweight access points waa labadan access point yaa ii sheegi kara waa maxay nooca ama waa maxay magaca loo yaqaano access pointiga aanan u baahnayn WLC ama haddaan si kale u dhigo waa maxay magaca la siiyo access point wirelesska aanan laga controlin WLC oo si gooni asaga loo controlo oo asaga configurationkiisa si local ah loogu sameeyo magacaas haddii aad xasuusatid isku day inaad ka jawaabtid waxaan rajeynayaa marka inaad jawaabta heshay noocaas access pointiga waxaa loo yaqaanaa autonomous access point laakiin noocyada access pointiska laga maamulayo halkan ama WLC-gana lightweight access points waa terminologies basic ah oo muhiim ah kooraska CCNA waxaan soo qaadanaynaa marka multi-layer switch sidoo kale intaan kaliya aan rabno hadda inaan sameyno iyo waxaan kusoo daraynaa kaliya hal computer oo aan rabno inaan ka maamulno WLC-gan ama wireless LAN controllerka kadib connectionka ayaan wada sameynaynaa hadda darsigan wax VLAN aniga ma sameynayo oo dhammaantood waxay ku wada jiraan VLAN 1 ayay ku wada jiraan iskana fiiri markii aan cable soo qaato oo ku xiro WLC-ga iyo switchka waxaan WLC ka doortay giga 01 iyo sidoo kale giga 01 oo switchka ah sidoo kale giga 02 oo switchka ah iyo 1 access pointiska iyo sidoo kale fast ethernet 01 iyo giga 01 oo access pointiga labaad ah marka sidaad u jeedid access pointiga labaad kumaanan xiriirin giga ethernet oo switchka ah ilaa ma haysanaba laakiin waa iska caadi haddaad fast ethernet iyo giga ethernet aad ku xirto waa network ku shaqeynaya laakiin waxay ku heshiinayaan labadooda midka speedka yar waxaad speed yar giga ethernet iyo fast ethernetka marka waxay ku wada shaqeynayaan marka fast ethernet ay ku wada shaqeynayaan haddii aan sii wadno marka configurationka sida dhammaan linkiska ay kugu noqdaan linkiyadan sida kugu wada noqdaan ay green waxaad kali ku sii kartaa halkan forwardka ah waa dedejin haddaad kali ku siiso dhammaan waxay wada noqonayaan green laakiin khadkan hadda green muusan inoo noqon saad u jeedno access pointigu wuu dansan yahay gaar ahaan halkan waxaa inooga muuqda kalarka guduudka ah haddii sidaan macnaha laabkaaga uu noqdo simbal ahaan kaliya access pointiga gal kali ku sii kadib soo qaado haddaan weyneeyo kadib soo qaado cablekan powerka ah ku xir marka halkan waa kaana adigoo maaragta power siinaysid access pointiga intaas ay u dhigantaa marka sidaan ugu xirto kan iska soo deji ama iska cancel hadda marka guduudka meesha uu ka qaadmay haddii hadda meeshaan kali ku siiyo dhammaan qadka waxay noqonayaan marka green kan imaana u baahan oo haddaan kali ku siino hore ayuu ka shaqeeyey marka kan sidiisa ku daa laakiin access pointiga kuu shaqey waayo oo inta guduud kaaga noqdo sida ay ku sameynayaan haddaan sii wadno marka waxaan tagaynaa marka computerkan waxaan siinaynaa IP address
IP address marka aan siinin waxaan ka dhigaynaa 172.16.1 adiga IP address ama any subnet waa dooran kartaa. hadda aniga waxaan subnet aan ku shaqeynayo waa 172.16.1.10 ayaan computerka siinayaa. defaultigana waan ku deynaynaa ama haddaan ka bedelno defaultiga waxaan leenahay 3x2550 ayaan iska kansaleynaa. kadib waxaan tegaynaa WLC-ga waxaan siinaynaa sidoo kale 172.16.1.2 ayaan siinaynaa. kadibna waxaan leenahay 3x2550 kadibna close ayaan siinaynaa. computerka haddii aan galno oo aan fiirino inaan ping la sameyn karno WLC-ga oo aan siinay 2. haddii uu pingki kuu shaqeeyo macnaheedu waxay tahay connection ayaa ka dhaxeeya between computerka iyo WLC-ga. kadibna waxaan aadaynaa web browserka oo halkan ayaan ka galaynaa marka sidaan u maamulno WLC-ga aan configuration aan ugu sameyno. waxaan leenahay 172.16.1.2 enter ayaan leenahay. waa HTTP iska ilaali marka ugu horeyso aad galayso WLC-ga waa inaad ku gashaa http:// ama / kadibna aad qorto IP. hadda aniga maanan qorin HTTP oo waxaan qoray kaliya IP enter ayaan dhahay. macnaha hadda kaliya IP aad qorto by default wuxuu raacinayaa asaga HTTP kaliya ayuu raacinayaa. waxaan leenahay marka username aan kusoo gali doono adow sida u maamulno qalabkan admin ayaan ka dhigaynaa. passwordkan waxaan ka dhigaynaa A capital 12345 ayaan ka dhigaynaa 6 ayaan ku sii daraynaa. hadda intii maana waxaan leenahay A capital 123456 hadda waxaan ku celiyo A capital 123456 wuxuu u diidan yahay. wuxuu ku leeyahay password must contain at least 6 characters. tamam wuxuu ku leeyahay meeshan waa inuu passwordkaaga uu ka kooban yahay upper case iyo lower case iyo numbers in iskugu jiro. macnaheedu waxay tahay waxaan ka dhigaynaa sidatan A capital A small 123456 ayaan ka dhigaynaa A capital A small 123456. sidaa markii aan sameyno kan muxuu bixi lahayaa marka A capital A small 123456 A capital A small 123456. okay hadda marka password waa sax. start aan dhahno password ayaa waqti naga qaatay. hadda meeshan maana marka system name waxaa leenahay WLC aan u bixinaynaa. adii meesha magaca aad doonto aad u bixi kartaa waa magaca qalabkaaga waa adigoo hostname dhehis switch iyo router waan ka soo hadalnaa arrintaas. waxaa imaanayna marka management address waxaan leenahay 172.16.1.2 waa IP haddaan kasoo galnay isla meeshaan dhigaynaa. subnet maskigana waa naqaanaa waa 3x255.255.0. gateway-gana hadda gateway ma haysano laakiin kasoo qaad inaan meesha router ku haysano network-gan gudihiisa. routerkan uu qaatay IP ah 172.16.1.1 marka meeshan waxaan ku qoranayaa gateway ayaan ku qoraynaa. hadda ma haysano waa iskaga qorayna laakiin VLANs-ka ku heshiinay darsidii hore waxaan dhahnay 0 ayaan ku deynaynaa. kadib waxaan leenahay next. waxaa imaanayna halkay ku qoran tahay network name. network name-kan waa wireless-ka uu access point oo WLC-gani uu ku qasbi doono in labadan antenno ay broadcast ku sameeyaan. waa magaca wireless-ka ay broadcast ku sameey doona. marka haddii aan galno meeshaan waxaan leenahay broadcast ku sameeyaan CCNA Soma. kadib waxaan leenahay passwordka iskana fi meeshan optionka passwordka waan ka hadli doonaa mar ayaan faahfaahin doonaa password wireless-ka laakiin hadda waxaan qoraynaa 123456789. sidoo kale waan kusoo celinaynaa 123456789. kadib waxaan leenahay next. waan kasoo hadalnay IP-gan wuxuu u yahay iyo default mobility-ga waan kasoo hadalnay. next aan iska leenahay. kadib waxaa imaanayna meeshaan ku qoranta apply. kadib okay aan leenahay. waxaa kaloo ku heshiinay markaan apply dhahno inaan sugin haddii aan dhahno waa sugaynaa oo ilaa oo page ka soo laabto ku soo laabanayo. marka waxaan iska leenahay close waana ku soo laabaynaa mar kale laakiin hadda waxaan ku galaynaa HTTPS ayaan ku galaynaa iska fiiri. hadda small ka dhigo HTTPS. kadib waxaan leenahay marka 172.16.1.2 enter ayaan leenahay. marka enter dhahno waan yara sugaynaa. markaan sugno waxaa marka
hadda muusan inoo soo bixin waan ku celinayna dhima lahan okay hadda markaan waxaan ku dhuftay go kadib uu soo baxay waqti yar ayuu qaadanayaa marka waxaan leenahay login waxaan gelinaynaa marka ay username ki aan doornay iyo password dhibka badnaa oo ah a capital a small 1 2 3 4 5 6 login ayaa leenahay hadda waan ku jirnaa marka system intaan marka casharo hore aan kusoo sharxnay ilaa ay meeshaan ka imaano hadda waxaan galaynaa marka configurationka exactly marka configurationkan sidii u fudaato steps ayaan u sameynayaa steps kadib aad raacdo wireless kaaga oo aad ku isticmaalayso WLC-ga si wuxuu kugu shaqeynaya insha Allah taala si fudud stepka koowaad meeshaan iska fiiri stepka koowaad waxaan u baahanahay in access points-kan aan siino IP addresses IP addresses-ka ee access point-gan labada ahna waxay ka soo qaadanayaan from WLC access point-gan IP-da waxay ka qaadan karaan DHCP kale oo external ah sida router ama Windows server way ka qaadan karaan laakiin hadda aniga waxaan rabaa in aan ka siiyo IP addresses-kooda from WLC sidee marka arrintu sameynayna waxaan tagaynaa marka waa step 1 iska fiiri waxaan tagaynaa halka ku qoran tahay controller kadib waxaan tagaynaa sad u jeed meeshan internal DHCP ayaan ku dhufanaynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa DHCP scope ardayda ila soo qaadatay cashirka ama DHCP configuration ee routerka gudihiisa waxaan sameey jirnaa waxa loo yaqaan IP DHCP pool markaan down space aan baxno magac ayaan sii jirnay marka scope kan waa sidoo kale hada Canada remove iska dhaho sidaan u wada sameeyno mid cusub kan sababta remove sameeyno waxay tahay by default scope kan ayuu ku imaaday WLC-ga inaga maana sameynin marka waa iska remove gareynayna marka waxaan leenahay new scope ama new pool adoo dhahda ay la mid tahay pool kan marka magaca aan siinayno waa magace waxaan siinayna magaca access points حتى access point ما دهينا waxaan leenahay lightweight access point san magacaan u qabano aan ku soo celinayna lightweight access point pool ayaan siinayna kadib waxaan leenahay apply marka apply dhahno hada poolku inoo sameysmay laakiin poolka ma lahan IP addresses ma lahan kadib oo ku dhufanayna isla poolka ayaan ku dhufanayna click ayaan ku siinayna markaan click ku siino waxaan marka meeshan imaanayna ay ku qoran tahay scope name waan soo hadalnay waa pool name pool start address IP-yada uu qaybinayo halkee ka bilaabanayaan waxaan leenahay ha ka bilaabo IP-ga 172.16.1 tusaale ahaan wuxuu ka bilaabaya IP-gaas okay aan ka dayno 100 waxaan leenahay ha ka bilaabo 20 ha ka bilaabo ayaan leenahay sidoo kale end address halkuu ku ekeenaya ilaa 30 macnaheedu waxay tahay marka start IP end IP maadaama aan doorno anaka 20 ilaa 30 10 IP oo kale ay ku jirta meeshan 10 ka marka IP ayuu qeybi karaa WLC-gan wuxuuna sii karaa 10 access points hadda waxaan ku haysanaa labo marka IP-dan labo kaliya aan isticmaali doono inaga kuwa kale hadda isticmaali doono oo asaga ayaa si automatic ah wuxuu u sii doonaa laba IP kamid IP-dan soo doornay labadan waxay noo banaa marka inay 8 kale ku soo biirno meeshan oo ay ka qaataan IP address marka sidaan ay ku deelina network maskiga waa network subnet maski ay meeshan sorry kan waa network address ka fiir meeshan network meesha ku qoran tahay waa network addresska waa addresska guud ee networka subnet mask ama net mask halkay ku qoran tahay waxa ku qoraysaa subnet maski ay ku qoraysaa kadib waxaan leenahay 0 waxaa kaloo marka aan sameynayna waxay tahay meeshan default router haddii aad rabto inaad access points-ka aad siiso aad barto default gateway-gooda halkan ay ku qoraysaa haddii aad doonayso inaad barto DNS-kooda halkan ay ku qoraysaa waxaad leedahay ardayda ila soo qaadatay DHCP configuration koorsooyin hore waxaad leedahay in ay garanayaan marka mustalaxaadkan ama terminologies-kan meesha ku qoran kadib waxaan leenahay marka apply ayaan leenahay sidoo waxaa ku sameynay pool ayaan ku create gareynay waana configuration ku sameynay haddii halkan ay imaado marka oo aan dhaho fast forward hadaan click ku siiyo dhowr jeer oo aan access points-kan dul imaado oo aan kor saaro falaarta IP hadda ay qaateen waa 192.168.1 inaga 192.168.1 maanan ku configure gareynin WLC-ga
سادرتيد marka waxaan sameeynaa si u shaqeeyaan keeblada aan ka bixinayna keeblada markii aan bixino kan wuxuu ku xirnaa jeclahay kanna waxaan ku xireynaa Ethernet waxaan ku xirnaa meeshan okay haddana marka isla fiirino IP ay qaado doonaan IP hadda ay qaateen waa 172.16.1.22 ayuu qaatay hadda midkan aan dusha ka saaray flaarta haddaan midkan kale aan dul tago asagana wuxuu qaatay 172.16.1.20 waa halkii aan inaga aan dhahnay ka bilaaw qaybinta IP address aan ku dhahnay waa WLC haddaan marka meesha ila fiirisid waxa ku qoran qoraalka hadda meesha inooga soo baxay sadarka afaraad haddii aad fiirisid markaad kor kasoo fiirisid kor waxaa ku qoran port kadib waxaa ku qoran gig ethernet .1 radio 0 sadarka afaraad ila akhri waxaa ku qoran cabweb status cabweb inaga waan kasoo hadalnay waxaa dhahnay waa tunnelka ama protocolka u dhaxeeyo between access point-ga iyo WLC protocolkaasi wuxuu awood inoo siinaya dhahnay trafficada aan ka direyno from access point to WLC iyo from WLC to access point in uu laba tunnel oo kala madax banaan u sameeyo traffic control traffic iyo data traffic waan kasoo hadalnay cabwebka oo faahfaahsan ama introduction ay kasoo sameeyeen ula jeedaa cabwebkaas marka hadda statuskiisa wuxuu ku leeyahay waa connected macnaha cabwebka shaqadiisa waa dhameystiran tahay iskana fiir meesha hadda waxaan galaynaa marka stepka labaad stepkooda ku guuleysnay oo ah inaan IP address siino access points-ka stepka labaad waxaan sameynaynaa meeshan waa muhiim inaan iska fiirino waxaan sameynaynaa marka wireless LANs waxaan tagaynaa halkan wireless LANs ayaan tagaynaa waxaa meesha inoogu qoran marka magac aan inaga aan soo siino ah CCNA Soma CCNA Soma waa magaca uu waa kan SID-ga waa CCNA Soma magacaan marka inaga waxaan soo siinay WLC-ga markii aan installation kusoo sameynay ama basic configuration kiisa kan waa iska tirayna marka waa stepka labaad waxaa tagtaa WLAN iska tir marka SID adiga kusoo sameysay marka aad systemka aad basic configuration kusoo sameynaysay stepka saddexaad marka waxaa ku laabataa halkay ku qoran tahay controller ku laabo kadib waxaa tagtaa halkay ku qoran tahay interfaces marka interface ku dhufato kadib waxaa ku dhufataa meesha new ayaa kali ku siinaysaa waxaa leedahay aniga broadcast ama wireless kan aan sameynayo dadka kusoo xirmi doono ama qalabka kusoo xirmi doono network ay ku jiraan waa network ma waxay ku jiraan VLAN 1 ma waxay ku jiraan VLAN 10 mise waxay ku jiraan VLAN 20 hadda inaga ma haysano VLAN 10 iyo 20 iyo 30 ma haysano wax aan haysano kaliya waa hal VLAN oo switchkani wax configuration inaga maanan ku sameynin aslan sadarteed marka default VLAN ku shaqeynaa switchka waa VLAN 1 sadarteed dadka kusoo xirmi doono access points kan waxay ka tirsan yihiin VLAN 1 ila inaga maanan sameynin VLAN kale sadarteed waxaa leenahay systemka waxaa leenahay interface name-ka aan rabno inaad sameyno waxaa leenahay waa VLAN 1 magac u bixinaysa waxaa leedahay VLAN 1 ayaa leenahay kadibna waxaa meeshan ku qoraynaa marka 1 ayaan ku qoraynaa kadibna waxaa leenahay apply ayaan leenahay marka meeshan waxaa rabaa inuu ku tuso iska fiiri yani configuration hadda aan sameynayno sida u badan tahay wuxuu soo saari doonaa errorka uu soo saari doono inaad la fahanno ayaa muhiim ah sababta uu soo saari doono errorkaas waxaa leenahay marka IP-ga aan siinayno waa 172.16.1.20 ama 1.3 hadda meeshan wax ma ila dareemaysaa oo qaldan had u jeedid inaga wireless LAN-ka ama wireless LAN controller-ka IP-ga aan siinay waa 172.16.1.2 IP-ga oo VLAN 1-ka aan ka siinayna waa isla networkaas macnaha meesha waxaan ku haysanaa hal qalab oo haysto laba IP oo ka tirsan same subnet yani logic ahaan ma kula tahay marka in arrintan shaqeynayso asla fiirino
kasoo qaad in aad router gashay laba interface oo kala duwan oo routerka inaad siisay laba IP oo isku mid ah oo isku network ah router error ay ku saaraya sababta waxa dhacay waxa la yaqaan duplicate in hal qalab siisay laba IP oo isku sameeyay aan sii wadna marka aan aragno haduu errorkaas ina siinayo WLC-ga gateway uma baahnin ama waad qori karnaa gateway waxaan dhihi karnaa gateway-ga waa 11 meeshan aan la fiirso port number-kana port number-ka 0 ay ku daynaysaa ama 1 ay ka dhigi kartaa meeshan haddaan 1 ka dhigno wax mushkil ma lahan kadib waxaan leenahay apply ayaan leenahay kadib waxaan leenahay okay kadib waxaan ku laabanaynaa marka interfaces ayaan ku laabanaynaa marka interfaces ku laabano waxa marka meeshan aan kaga jeednaa VLAN 1 hadda meesha la fiirso VLAN 1 markii meeshan u jeedno numberka VLAN-ka waa 1 laakiin IP aan qorna aaway IP aan dhahnay 172.16.1.3 IP-gaasi khadka ayuu ka baxay marka taa macnaheedu waxay tahay marka haddii adiga aad design-kaaga uu sidan u yahay iska fiir meeshan haddii design-kaaga uu sidan u yahay oo macnaheedu ay tahay yani wireless-kaaga network-ga ay siinayaan wireless-ka computer-da kusoo xirmaya ula jeedaa كمبيوترادن هدي أي كسبنت يهين هدي أي كنتوج يهين WLC كنترول أصلا قلبيدان استاد كان هذا عن سمينا إنجا أو عن تجني كنترولر أو عن تجني انترفيس أو عن دهني نيو أو عن دهني هل كان VLAN مقع أو بحني VLAN 1 عن دهني أو هل كان كقرني 1 أو عن أبلاي دهني أو سيدا عن كسواني وما بهني معناه waxay tahay step-kan waxa u baahan tahay kaliya step-ka interface ah oo kadib new address waxa u baahan tahay hadii adiga aad wireless service ay siinaysid VLAN kale ama network kale aanan ku network ahayn maadaama aan network kale dhahnaba aslan ku network ma aha WLC-ga marka step-ka iska fiiri waa khaladaadka ay ku dhacaan ay ku jirtay ardayda markii assignment sidan kale la siiyo isla markii wuxuu ardayga isku dayaa markii inuu IP siiyo VLAN 1 controller kan wuxuu ku jiraa VLAN 1 marka hada uma baahnin ba inaan arintaas sameeyo waa step-ka saddexaad ayaan hadda mareynaa step-ka saddexaadna X ayaan saarnay design-ka hadda aan haysan laakiin design-iska kale ama labiska kale waan u baahan doonaa step-ka aan imaano marka WLAN-ka waa step-ka afaraad iska fiiri new aan leenahay meesha waxa ku qoran create new go hadda dhahayd macnaheedu waxa way create new go ayaan leenahay create new wireless-ka aan sameyn doono wax hadda aan sameyno wax kale ma ahan waa wireless name-ka ay broadcast ku sameyn doonaan qalabkan ama antenooyinkan marka waxaan leenahay si simple ah profile waxaan u bixinaynaa soma profile-kana mar ayaan ka hadli doonaa hadduu aleedmo hada profile-ka any name ay sii kartaa waxa muhiimad aan saaray marka waa SSID ma ku soo hadalay waa service identifier SSID-ga waxaan leenahay waxa ka dhigtaa soma ka dhigayaan leenahay ID-gana waxba bedelin ID-ga waa 1 kadib waxaan leenahay apply ayaan leenahay okay inta marka wax kale u galay aan soo laabno marka haddii aniga aan computer laptop aan keeno waa inta dhigo laptop-kan user-ka isticmaalaya markuu galo wireless-kiisa uu isku dayo inuu baaro antenooyinka agtiisa ka dhow si uu soo galo network-ga waxa u soo baxayso magaca soma sida ugu soo baxday inaga ayaan ka dhignay inaga ayaan dooranay inaga ayaa dhahnay SID-gaaga waxa ka dhigtaa soma taama fiir kadib apply ayaan soo dhahnay waxa imaanayna marka halkan ay ku qoran tahay status waa ina dhahda enable waa daruuri enable macnaheedu waxay tahay waxa ay active gareysaa magaca soma in ay Xbox-ka broadcast ay ku sameeyaan waa muhiim arintaas haddaan nimaano marka interfaceska meeshan interface-da haddaan soo furo meeshan interfaceska hal interface kaliya ayaan hadda haystaa waana management-iga asaga aan ku deenaynaa haddii aan haysan lahayn dhowr VLAN oo kala duwan oo interfaces virtual aan ku abuuri lahayn marka halkan furno waxa inoo soo bixi lahaa marka interface kala duwan kadib waxaan leenahay marka apply ayaan leenahay marka apply dhahno waxa inoo soo haray marka step-ka shanaad ama step-ka lixaad hadda kan haddaan u ictibaarino inuu yahay hal step-ka lixaad marka
waxaan tagaynaa meesha ku qoran tahay security waana meesha aan go-aanka ku qaadan doono oo ah dadka wireless-keenu kusoo xirmaayo waxaa inoo bannaan inaan kula tacaamulno saddex arrimood. kow, inaan wax password aanan weydiinin oo aan ka dhigno wireless-keena waxa loo yaqaano open authentication. wax password ah ma lahan, qof kasta oo magacaan sooma usoo qabto mobilkiisa ama laptopkiisa hore ayuu kasoo galaya. taa waa optionkaasna waxaa lagu sameeyaa maqaayadaha iyo meelaha publica iyo sida eelaboorada oo kale waa lagu sameeyaa, laakiin waxa fiican waxay tahay markii aan ka hadlayno shirkadaha in aan security aan u sameyno ayaa fiican. optionka labaad haddaan u nimaano, optionka wada waa ujeedaan waa nan, yani wax password ha ii siinin waaye. optionka labaad aan isticmaalayno waxaan ka dhigi karnaa WBA plus WBA2. markaan kali ku siiyo midkan waxaa ii soo baxaya marka laba option kale oo muhiim ah oo aan hadda kahor kasoo hadalnay. optionkan dambe haddaan ku bilaabo oo BSK-ga ah, BSK macnaheedu waxay tahay pressured key oo macnaheedu ay tahay keliya password. inaan password meeshaan ku qorno haddaan enable laho iska fiir wuxuu isoo saarayo. marka enable laho wuxuu leeyahay geli meeshaan passwordka. kaba soo qad waxaan geliyay password ah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ayaan geliyay. haddaan si sax u geliyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. passwordka marka waa passwordka ay wada share garee doonaan dadka kusoo xirmi doono wireless-kan oo dhan. qofka sida ugu soo xirmo inuu yaqaana keliya passwordkan. kan waa option. haddii optionkan aan iska dhaafno aan isticmaalo waxaa inoo baahan option kale oo ah 802.1x. 802.1x waa inaan isticmaalno waxa loo yaqaano AAA ama haddaan ka hadalno waxa laga soo gaabiyay AAA waa authentication authorization accounting. waan kasoo hadalna marka AAA waxaan dhahnay waxaan u baahanaynaa system ama server loo yaqaano authentication server. systemkaas waxaan ku shubaynaa username-ka iyo passwordska ardayda ama shaqaalaha shirkadda aan u xirano wireless-ka. WLC hadda aan ku dhex jirno haddii aan optionkan doorano wuxuu inooga baahan yahay inaan WLC-gan ku amarno aan dhahno fadlan qofka kusoo xirmaya network wireless-ka password username iyo password weydii. username iyo passwordkaasna in uu sax yahay in kalena waxaa ka hubisa oo ka jeegaraysaa external server oo aan u tilmaami doono oo aan sii doono IP-giisa. waxaan dhihi doonaa serverkan la xiriir weydii serverkan ku dheh sax miya username-kan iyo passwordkan. haddii okay kusoo dhaho qofkaasi uu ogolo inuu network soo galo. ama simple ahaan isla WLC-ga ayaa waxaan ku sameyn karnaa local database. username iyo passwordska intuu WLC-ga ka doono lahaa server oo external ah, databasekiisa gudaha ayaan waxaan ku sameyn karnaa dhowr username dhowr password oo aan dhihi karnaa marka usernameskan iyo passwordkan ogolaaw inay soo galaan network. hadda marka labka hadda aan inaga aan haysano waxaan practice ku sameynaynaa keliya midkan oo pressured key-ga ah ayaan practice ku sameynaynaa. hadda waxaad leedahay marka inaan hadda fahanay waxaan marka hore ay joognay general tab keliya check ayaan soo saarnay enable-ka security ayaan soo galnay waxaan check saarnay kadib BSK-ga. intaan BSK-ga check saarinna waxaa marka hore aan meeshan inoo ahayd nan ayaan kasoo qaadanay waxaan doornay WBA plus WBA2 kadibna waxaan check saarnay BSK-ga ayaan enable ka dhignay. wuxuu inaga dalbay marka inaan gelino passwordka waan gelinay waa 1 ilaa 9 ayaan gelinay. sidoo kale ugu dambeyn waxaan stepka ugu dambeeya aan kusii dareynaa inaan active gareyno algorithmka ama encryption algorithmka aan ku isticmaalayno wireless-ka. waxaan tagaynaa halkay ku qoran tahay WBA2 waa haddii aan rabno inaga inaan isticmaalno WBA2. kadib waxaan ku sameynaynaa click ayaan ku sameynaynaa halkan waa active gareynaynaa. marka active gareyno oo sidan aan dhammeeno waxaan leenahay marka apply ayaan leenahay kadib waxaan leenahay okay. hadda marka network-geena wireless-ka waa diyaar. haddaan forward ku sameyno waa diyaar hadda wireless-ka. waxaan soo qaadaynaa marka laptop ayaan soo qaadaynaa santas u sameyno. laptopka markii aan keenno aan tagayna laptopka markii aan furno haddaan zoom gareeyo marka hore laptopka waxaa u baahantay inaad demiso oo aad ka bixiso kaarka network-ga ee cable-ka oo aad kusoo xirto wireless kaarka. kan ay kasoo qaadaysaa wireless kaarka halkan aan soo saaraynaa kadib waan daaraynaa. haddaan tagno desktop-ka aan sii tagno marka meesha ku qoran tahay PC wireless haddaan click ku siiyo oo aan kadib dhaho meeshaan connect haddii aan dhahno oo aan yara sugno
waxa marka inoo soo baxay marka access pointiga inaga aan haysano hadda meesha ila fiiriso access pointiga aan haysano waa laba access point sadarteed marka waxaan haysanaa hadda magaca soma iyo soma oo loo mar soo muuqatay iyo mid kasto percentage-ka signalkiisa uu yahay iyo xoogga signalkiisa uu yahay hadina waxaan ku xirmaynaa marka access pointiga koowaad waxa leenahay connect markii aan connected ahna wuxuu inoo weydiinayaa marka meeshaan password waa passwordka inaga aan soo gelinay oo ah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kadib waxaan leenahay connect ayaan leenahay haddaan iska soo laabano marka waxaan arkaynaa marka inuu ku xirmay client-gani inuu ku xirmay access point-iga haddaan fiirino marka client-iga IP address-ka uu qaatay saad u jeed meeshaan markaan tagno IP wuxuu qaatay 172.16.124 124 kan wuxuu ka qaatay hadda meesha ila fiiriso only DHCP ah meeshaan ku haysano waa DHCP aan ku sameynay WLC-ga laakiin real ahaan WLC-ga DHCP aan ku sameynayno uguma talagalin ama looguma talagalin inuu client-igan IP address siiyo client-iska waxa IP address siinayo waa inaan haysanaa router ama centralized DHCP laakiin DHCP aan ku sameynayno kaliya wireless-ka ama WLC-ga waxaan rabnaa kaliya inuu ka siiyo ama waa inuu waxaan rabnaa kaliya inuu siiyo IP address to access point-iska kaliya haddaan marka aan soo qaadno laptop kale ama haddaan soo qaadno mobile haddaan soo qaadno mobilkan oo kale haddaan inta keenno aan kili ku siino kadibna aan tagno config kadibna wireless-ka aan tagno wireless-ka meesha magaca SID haddaan ka dhigno marka soma haddaan ka dhigno kadibna aan cancel iska saarno waxaan rajeynaa marka magaca soma inuusan capital ahayn hadduu capital yahay waa inaan capital ka dhignaa waa capital haddaan ku laabano marka wireless-ka mobilka oo aan dhahno magaca soma waa capital dhammaantiis haddaan kadib aan dhahno marka x haddii aan saarno aan yaro sugno marka mobilkan wuxuu connection la sameyn doonaa marka mid kamid ah anteenooyinka access point-iga laakiin hadda waa maxay marka sababta uu connectionka uu la sameyn lahayaa sababtu waxay tahay inaga waxaan soo doornay saa ogtihiin markii aan ku jirnay WLC-ga passwordka sidoo kale waa inaan gelinaa mobilka siduu connectionkan u shaqeeyo haddaan ku laabano marka mobilka waxaan tagaynaa wireless-ka kadib waxaan tagaynaa marka WBA2 waa nooca inaga aan soo doornay kadib waxaan leenahay markuu passwordka waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kadib waxaan leenahay close ayaan leenahay waan yara sugaynaa marka haddii marka passwordka uu sax yahay magaca network-gan uu sax yahay mobilkan markuu ku xirmaya sida ujeedna uu ku xirmay oo connection uu la sameeyay haddii aan tagno marka halkan desktop haddii aan tagno oo IP configuration-ka aan tagno sidoo kale asagana wuxuu qaatay IP address oo sidoo kale waxa ku sameeyna marka basic WLC configuration waxa marka darsiga aan ku barnay sidee marka hore aan basic configuration aan ugu sameynaa WLC-ga sidee aan interface-ka virtual-ka aan ugu abuuri karnaa gudaha WLC-ga sidee magac wireless aan ugu abuuri karnaa gudaha WLC-ga kadibna magacaas wireless-ka uu kaga soo muuqan karaa anteenooyinka network aan ku haysano oo laga controlayo WLC-ga waxaan kaloo aan barnay DHCP configuration oo aan internal DHCP ku sameynayno WLC-ga sidoo kale waxaan barnay noocyada kala duwan ee authentication-ka marka la joogo wireless-ka waan soo dhahnay open authentication iyo inaan isticmaalno kaliya password iyo inaan isticmaalno username iyo password inta box soo hadalnay